askari daacadaanahay daljirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay askari daacadaanahay daljirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay marna dacarayaanahay cadow dila ayaa agaanahay dandaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaa saddex mas'uuliyad ay saaran maanta marka koo waxaa matashiin qarankii waxa weeyaan mas'uuliyadii saaran waa mas'uul safiir oo kale maanta hadaa noqotiin ciidan oo la kari karin oo amar qaadanaynin oo maxaan ku raada ciyaar suuqnimo ku dhaqmo waxa la leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed sidaas ah qaranka Soomaaliyeedana sidaas ah sidaas darteed ogaade marka baxdino diyaaradda saa kortiin qarankiina koo matashiin marka xigta waxaa matashiin waxa weeyaan waa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay oo intaan oo gabdha oo koox gooni ah oo ka mid noqoto ciidamada gaarka ah taariikhda Soomaaliya hadda ugu horeyso idinkana marka waxaa gogolo xaar u tiin inta gabdho niga daweemaanayso ani maanta waxaan u joogaa sida idinka biri u noolaan lahaydeen idinkana waxaa u joogtiinsaa gabdhaha kale biri u sii noolaan lahaayeen horta silsiladaas inaad fahantiin aan laga rabaa qof walba mas'uuliyadiisa saaran tahay si gaarna waxaan u matashiin waa ciidanka booliiska Soomaaliyeed haramacad waa ogtiin waxaa lagu tababaraa xerada Turksom ku taalo jasiira agteeda waa markii ugu horeysay oo ciidan haramacad ah oo dibadda loo qaado idinka nasiibkaas ee maanta Ilaahay idin qadaray waxaa la rabaa marka taas xataa inaad fahantiin nicmada ku leedihiin iyo mas'uuliyadda idinga saaran koox ahaan isku wada xirnaada hadda ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guriyo kala duwan maanta kuliina waxaa tihiin kooxda kartisan haramacad rag idinga horeeyana iyo kuwa niga dambeeyana waxaa tihiin walaalo way niga xigaan ciidanka oo dhan way niga xigaan marka howlgalaysiina dadka idin badbaadinayeen waa iiga wax badbaadinayeen waa idinka marka waa inaa ogaatiin horta koox inaa maskaxda gelisiin qof laga guuraa qaran lama gaari karo ciidanka moobta wuxuu kala dhisan yahay darajooyin kala duwan waxa ugu hooseeya waa unug waa 10 qof maanta waxaa maraysiin konton waa koox waxa ku sii socotiin hurin oo 100 ah hurin oo dhan waxay qabsan kartaa xamar oo dhan marka nus hurina hadda maraysiin idinkana waa inaa saas u fikirtiin qof waa ka weynaateen hadda saaca laga bilaabo taliyahan wuxuu balan qaaday inuu abaalmarin bixin doono dadkii maanta maxaan ku raadaa tababarkaas ay ka soo baxo oo ka soo dhalaalo oo mas'uuliyad gaar ah ay saaro idinka naftarkiina team isku sii qaybiya taliyaha guud waxa idin ah xidig la deeqo ila korniga maamusho anina waan la socon doonaa wallahi waa jeclaan lahaa diyaaradaas inay la koro laakiin mas'uuliyad ay saaran oo geedaan in raaci karo hadda imaan karan oo halkaas lagu soo booqan karan waa idin booqan lahaa laakiin ani waxa iga fiican oo qalbiga ku dejisanoya gabdha ii soo socdo oo garab ii noqon doon si idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badan ay la kulmaan maanta haday helaan ciidan gaar ah oo gabdho kaliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ku seexan karto nabad iyo barwaaqo waxa mas'uuliyadna saaran ogaada maanta waxa uu maqatay waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqada ku jirtiina waa shaqo ajir iyo xasanaad niga raacayso waa hadaa u niyeysatiin qoftii maanta u niyeysato inay TikTok ka soo muuqato ama maxaan ku raadaa social media ay ku bootayso ajirkeeda waa halkaas wayna naga hari doontaa hadda idin sheegaya wixii hadda doonaya maxaan ku raadaa xayasiin TikTok hadda diyaaradda hay'adaha hartay sababtoo markay soo laabtaan iyo qofkaas waa isdileynaa laakiin waxaan niga rabaa qarankiina iyo qoyskiina iyo ciidankiina u maqantiin maanta gabar walba idinka lagu tashanaysaa kaliya yani wax ma qaban karo
maanta haddaa dhinto yaa noo islaan idinka laakiin dartiin maanta waa faraxsanaa korneelka xataa oo turkiga waxay u qaadatay sanad inay turkida aqbalaan inay gabdho ka mid noqdaan ciidamada haramacad intaas dadaal waxaa u soo maraya waa dartiin armaan gabar meeshaa ku jirtaa dhehaysaa maanta zakiye eeday ii tahay ama in adeertay waaye ama maxaan ku ihahdaa qabiil ahaan igu soo xushay kulligiina magacyadiina xataa badankiina ma aqaan muhiimna ii ma ah waxaa ii muhiimsan keliya inaan heeso gabdho oo ani ila dareensan maarkan mas-uuliyadda ina la qaadi karo markaas soo laabatina shaqooyin aad u tiro badanaa noo harsan doorashaa lagu jiraa amni daraa magaalada ka jirto gabdhihii oo dhan maxaan ku ihahdaa dhibaatooyin bay ku dhex jiraan waxaasoo dhan dadkii ka hortagi lahaa waa idinka ani waxaa idiinahay keliya geedkaas oo hooskiisa kusoo barbaari lahaydeen qof walba waxaa rabaa marka fursadaaneet inaad ka faa'iidaysatiin balan ma tahay inaan qaranku shaqaynayno balan ma tahay inaan qaranku shaqaynayno ma ka weynaanaynaa qawiil ma ka weynaanaynaa qolo qaranka ma shaqaynaysiinoo koox ma tihiin ma u dhimanaysiin qarankiina ma u noolaanaysiin qarankiina soomaaliya idinkan israacda